بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي كحرنا بيك official وولالكن وإذن الله يسكسو نقد وناكسن maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa sida facebookaaga aad u ogaan lahayd inta qofooda kula isticmaasho ama inta meel laga kiciyay facebookaaga, sidoo kalena sida loo adkeeyo amniga facebookaaga haddii la isku dayo in laga jabsado sida maaragtay code uu kugu soo dhici lahaa. sidoo kale two step verification waxaa jiro muuqaal horay aan kusoo sameeyay oo dhanka description-ka idin soo dhigi doona ayaad ka daawan doontaan qofkii u baahan insha Allah. marka waxaan ka codsan lahaa haddii aad channelkan maanta aad ku cusub tahay please inaad subscribe inoo saartid, sidoo kale muuqaalkana la gareysid asxaabtaada la sii wadaagtid oo u baahan inay facebooka amnigooda adkeystaan, sidoo kale inta mobile uu ka kacsan yahay facebookooda ay ogaadaan. ugu horeen waxaad tegi doonaa facebookeena. facebook markaas sidan u imaano waxaad tegi doontaa saddexdaas dhibic markaad tagtid waa ku dhufan doontaa, kadibna hoos ayaa u wadi doontaa. waxaad kasii xulan doontaa setting and privacy markaad ka xulatid, sidoo kale waxaad kasii xulan doontaa settings markaad kasii xulatid asagana uu israadinayaa cabaar yar. sidaa markuu isku raadiyo adiga hadda optionadan marabno optionkan ayaa noo qoseeyo, optionkaas oo ah password and security ayaa ku dhufan doonaa. markaas sidan ugu dhufano password and security waxaa marka oo aan ku dhahay inta qofooda ka cashatay where you are logging in inta meel oo laga kiciyay, kadibna waxaan kasii xulan doonaa see all dhammaan natus inta meel oo laga kiciyay facebookeena sida ujeedid wareega. okay intaana laga kiciyay 71 linuxkaas 71 u badan, device type unknown, telephone and tape aan la aqoonin, iyo sidoo kale Samsung 71. marka inta ayaan ku dhufan doonaa, waa iska wada xiri doonaa isaga dhan log out all session. sida markaa ugu dhufano wuu wareegayaa. markuu wareego okay waakina sidan ku soo qabtay, kadib waxaa dhigi kartaa login out ku dhufanayna. login out markaa ku dhufano okay login out markaa dhahnay sidoo inoo soo qabtay waa ujeedaa. wuxuu inoo soo qabtay A71 active now, bis A71 oo kaliya hadda active ka yahay. waa telefoonka ana hadda aan wato oo haddana maaragtay muuqaalkan ku sameynayo. sidoo kale ma rabtaa marka inaad maaragtay aad xadidid telefoonkaaga waa ka laaban doonaa okay oo ku wada tusi doonaa adoo maaragtay setting and privacy aad joogtid ayaa waxa imaan doontaa personal account information ku dhufo. markaas sidana ugu dhufatid bartan ay ku qoran tahay contact information, ana hadda lambarkeygu oo ku qoran yahay. qofkii isku day inuu jabsado isla markii kood ayuu soo dhigayaa. marka meeshaas ayaa ku dhufan doontaa. marka ku dhufatid sidan ayuu ku soo qabanayaa. ana hadda saddexda option ba ii buuxaan, lambar kale oo ku darsan karaa, waxa rabo ku sameyn karaa. marka insha Allah taasina waa lagu adkeystaa. marka qaabkan labadan dhinac ayaa ku soo darsan doontaa ku qoran tahay add photo number iyo add email address. labadaas dhinac ba ugu soo darsan kartaa. qaybta kale aan sheegay oo maaragtay muuqaal hore aan ugu soo sameeyay ayadana waxaad tagi doontaa password and security markaad tagtid, kadibna waxaad tagi doontaa two factor authorization. waatina two step verification lahaa muuqaal hore ka soo sameeyay. muuqaalkaas ayaad ka dhameysan doontaa insha Allah. maanta muuqaalkeena halkaas ayaan ku soo afmeereynaa. intaan muuqaalkaas soo afjirin waxaan ka codsan lahaa inaad muuqaalkan aad si share gareysid asxaabtaada la sii wadaagtid, sidoo kalena haddii aad maaragtay ka daawanaysid my page facebookeena inaad follow inoo saartid, sidoo kalena asxaabtaadana la sii wadaagtid. muuqaalkaasna haddii ku cajab geliyay like saar insha Allah. waxaan ku leeyahay tan inta uu doono video aan kan oo kala
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نورتا وقتها كفائديسو مهمة أو إذل أو وقتها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.